Salaamu calaykum dhammaan bacda ku xiran Miirashow. Waxaan wadaa cashir kaleeto sidee ayaan u furi karaa Dema account inta aanan furan Real account. Okay, aan isla aragno si aan ugu baraatikeeno signaaladana aan u qaadano ayaan idin bari doonaa maanta. Markaad halkan timaado waxaad ku dhufa doontaa halka aan hadda flairta kuu saaray. Kadib laba duq ayuu kusoo saarayaa open Dema account ama login Real account. Qaybta kore Dema account ayaa ku dhufanaysaa. Kadib Surgeon waxaad u direysaa brokerka aad xiiseynayso inaad ka furato account. Hadeertaani waxaan dalabnay ICM Capital. Waxaad ku dhufanaysaa midka ugu hooseeyo. Kadib halkan ayuu ku keeni doonaa. Halkani waxaad geli doontaa information kooban. Waxaad gelinaysaa qaybta koowaad magacaada, qaybta xigta lambarkaaga gacanta caadiga, qaybta saddexaadna waxaad geli doontaa emailkaaga ama gmailkaaga. Sidoo kaleeto qaybta ugu dambeysa ee leverage waxaad gelinaysaa 1.200 sababtoo ah waxaan rabnaa in aan ku tababarno marka aan akoonkani lacag yar ku shubano si aan lacagtaas u korino. Haddii aad lacag badan ku isticmaasho halkani ogow, marka aad lacag yar ku shubatid akoonkaaga waad khasaari doontaa 99%. Hadda isbar sidaad lacag yar ugu ganacsan lahayd aad ugu soo saari lahayd lacagtaas yar lacag badan. Leverage waxaan ka dhiganaynaa 1.200. 500 hadaa ka dhigatid ogow halkaada dollar wuxuu u dhigmi doonaa $500. taasi waxay inoo tahay khasaaro sababtoo ah akoonka ama akoonka rajeynaysa waxaa rabtaa inaad ku bilowdid lacag yar. Lacagta aad helaysid mise akoonka lagu dhigaayna waxaad ka dhigataa lacagta ugu yar $3,000. $100,000 jirta laakiin ha ka dhigan sababtoo ah waxaan rabnaa lacagta ugu yar ee akoonka laga dhigan karo inaan ku baraatikeeno. Marka aan $50 mise $100 aan ku bilaawno si aan faa'iido ama lacag ugu sameyno. Laakiin lacag badan hadaa ku bilaawdid ogow marka aad lacag yar ku shubatid halkani wax lacaga kama keeni doontid. Hadeertaani akoonkii waan abuuranay waa Dema account sida u jeedin waxaan ku bilaawna lacagta ku jirto waa $3,000 oo Dema account ah oo nala amaahiyay si aan u barano aan ugu baraatikeeno halkani. Hadeertaani waxaan kusoo darsanayaa lacagaha iga maqan. Lacagahani oo dhan ayaan soo qaadanayaa waxaan keysanayaa boggeyga hore dashboardka. Hadeertaani lacagihii oo dhan waan soo qaadanay waxaan keysanay boggeyna hore. Haatan waxa inoo dhiman waxay tahay in aan soo qaadano signaalada si aan u isticmaalno signaaladaas. Take profit, stop loss maxay kala yihiin, halkee la geliyaa, halkee la isticmaalaa. Fadlan si degan muuqaalka u daawo. Hadeertaani Wilson Forex Signals waxaa la soo dhigay GBP iyo Australian dollar in aan ku gali doono ama in aan ku galo sell. Hadeertaani waxaan raadinayaa lacagta GBP iyo Australian dollar. Kadib waxaan ku gali doonaa sell, kadibna take profit iyo stop loss ko isiyay ayaan geli doonaa. Fadlan muuqaalka ila daawo, baro qaabka loo geliyo take profit iyo stop loss ka iyo meelaha la geliyo. Lacagta waan helay waxaan dhihi doonaa new order. Hadeertaani lacagtii falanqeynteeda ayaan gudaha u galnay. Qaybtan kore waa lacagta aad saaranaysid aad ku galaysid trade-kani. Ha noqoto lacagta aad ku galaysid trade-kani, ha noqoto lacag yar. Lot size-ka lagu sheegayo waa halkani. Lot size hadaa aad maqasho waa halkani lacagta la gelinayo. Baro lot size. Waxaan dhahay sell sida u jeedin waan galay trade-kaas waxaan ku galay 0.01. waa marka aad u baahan tahay lacag yar inaad lacag badan ka samaysid sidaana ku galaysaa. Stop loss iyo take profit hadda ima lahan. Waxaan rabaa inaan gelgeliyo waad ku dhageysaa. Kadib 4 daqiiqo kuu soo saaraya waxaad ka dooranaysaa modify order. Halkan ayuu ku keeni doonaa. Halkani maxaa lagaaga baahan yahay inaad gelisid halkaasi take profit halkani stop loss. Waan soo qaadanaynaa. Hadeertaani waxaan imaaday Wilson Forex free signal. Copy ayaan dhihi doonaa take profit kan 2 TB waxaa laga wadaa take profit 1 take profit 2. Hadda ayaan ku tusi doonaa iyo stop loss ka kaliya ee wataan. Ila daawo muuqaalka. Hadeertaani TB1 waa soo qaatay waxaan geli doonaa halkaas ayaan ku dhihi doonaa basti. Kadib waxaan dhihi doonaa modify. Sida u jeed hadda TB1 waa ii qaatay take profit ka hadda waa ii qaatay sida u jeedin lambarkii TB1 ka ku galay waa kay.
ima lahan stop loss. Waxaan soo qaadan doonaa stop losska haddana. haddeertaan waxaan koobi soo dhahay stop losskii geeskaasi bidix ama gaduudka ayaan ku dhahay basti, kadib waxaan dhahay modify. sida u jeedi stop loss iyo take profit tradekan uu ii leeyahay, oo haddii aan iska jiifto ama beriyo kaleeto haddii aan eego wuxuu igu dhacayaa dhanka faa'iidada, ama haddii kaleeto wuxuu igu dhacayaa dhanka khasaarada. waxaan dhihi doonaa jarti, waxaan fiirin doonaa stop losska iyo take profitka halka ii yaalaan. sida u jeedi qaybtan hoose haddii uu ku dhaco kandhalkaasi soo socda, haddii uu qaybtan hoose ku dhaco faa'iidadeedu way ii xaro doontaa anigoo ka maqan suuqa. sidoo kaleeto qaybta kore hadduu ku dhaco waa stop losski, waa la xiri doonaa khasaarada. sidoo kaleeto ugu dambeyn TB2gana sidoo kaleeto asini stop losski waan geliyey, tag profitkani waan geliyey, waxaan dhahay modify. sidaa u jeedid isla haddeertaani markii aan tradeka galay dhanka faa'iidada ayuu u dhaqaaqay. signaalada aan halkan soo gelino 90% waa faa'iido. ma kala kulmaysid wax khasaare ah, laakiin waxay kaaga baahan tahay in aad ku geshid lotses macquul ah oo lacagtaada u qalanta. waa mahadsan tahay. haddii aad cashirkan ka faa'iidana muuqaalka like